السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. magacaygu waa Yaasiin Maxamed. waxaan jeclaan lahaa bulshada Soomaaliyeed in aan videogan kula wadaago waxyaalaha qiimaha insurance-gooda saameeya. qiimaha insurance-ga waxa saameeya runtii waa waxyaalo fara badan bay ka kooban yihiin, laakiin waxaan doonayaa inaan saddex waxyaalood oo aad iyo aad u muhiim ah aan ka soo qaato. saddexdaa waxyaalood waxa weeye waa marka koowaad waa qofka khatartiisa guud oo shakhsiyadeed. waxaa laga ogaadaa qofka muxuu shilal galay iyo muxuu tiga dhaqaatay. guud ahaan shilalka marka inta badan steediyada waxay dib u eegaan qofku shil uu galay oo ama ha gardarnaado ama ha laga gardarnaaday shilkii uu galay 5 sano ugu dambeysay ay badankooda eegaan. waa jirtaa insurance-yaal kooban oo 3 sano dib u eegid ku sameeya. taas waa xagga shilalka weeye. ta labaad waxaa weeye qofka driving recordkiisa oo wixii tigidha ah ee gala ayaa iyadana la eegaa. badanaa taas steedyadu badidoodu waa Mareykankeenu ka hadlaynaaye waa 3 sano ee lasoo dhaafay ayay dib u eegayaan. marka taas waa qofka shakhsiyan khatartiisa weeye marka la eegayo. waxaa iyadu labaysa oo qofka isagana qiimihiisa saameyn ku sameynaysa waa qofka insurance history-giisa. waxaa la eegayaa qofkanu hadda maadaama insurance waa marka aad raadsanayso qiimahaaga ayaynu ka hadlaynaa waxyaalaha saameynta ku yeesha. waayo dadka qaarna ay qiimuhu ugu jaban yihiin, qaarna ay qaali ku noqdaan. marka saddexdan waxyaalood ee hadda aynu soo qaadanay ayaan ka hadlaynaa. marka waxaa weeye qofka waxaa la fiirinayaa insurance history-giisa in intee la eg ayuu insurance-gii hadda ugu dambeysay. horta marka hore waxaa weeye yaanan ka boodin, insurance ma la joogaa baa la fiirinayaa. hadday haa jawaabtu tahay insurance-ga uu qofku hadda la joogay in intee la eg ayuu la joogay ayaa iyadana qiimeyn lagu sameynayaa. sanad iyo wixii ka badan qofka way caawinayaan hadduu si joogto ah uu insurance-ga ula joogay, isla mar ahaantaana uu muxuu ahay lacagta si joogta u bixinayay markaana wax dhibaato aanu geysan. qiimaha iyaduna saameyn fiican oo xagga wanaagsan ay ku yeelanaysaa. inagu dabcan dhaqankeena waad ganaadiyay aynu Soomaalinahay qofka waxaynu wax ku qiimeynaa waa wejiga ayaynu qofku ku aaminaa. iyaguna waxay eegayaan qofkan insurance-gan uu la joogay in intee la eg buu ku nagaa. aad waxaa bulshadeena uga dhacdaa 6 biloodba mar walba meel bay aadaan. marka taas waxay sababtaa runtii inaanu qofkii una meel si toos ugu nagaanin, taasoo saameynta dabcan iyaduna wax ku yeelanaysa. geediga joogtada ahi run ahaantii ma caawiyo. ta saddexaad oo ugu dambeysa waxaa weeye waa deegaanka area-da qofku uu degan yahay. saameyn aad iyo aad u weyn ayay ku leedahay. deegaanadu waxaa weeye waad ogtihiin oo marka xagga nabadgelyada la eegayo way kala khatar badan yihiin. sidaa si lamida ayay insurance-gana marka deegaanka la eegayo deegaankaasu nooca uu yahay, dadka degan, guryaha ku yaala, ma guryaha la leeyahay baa ku badan, ma apartment-yada ku badan oo guryahan maaragtay dadku badan ay wada degan yihiin ayaa ku badan. saxmada muxuu ahay say ugu badan tahay qiimeyn baa lagu sameeyaa. dadka degan laftooda qiimeyn baa lagu sameeyaa. marka haddii eriyooyinka markaa aad muxuu ahay aad degan tahay ay yihiin meel dadka minority-ga guud ahaan la yiraahdo oo muxuu ahay madowga iyo dadkan muxuu ahay qaxoontiga Laatinada dadkaas ay ku badan yihiin, inta badan waxaa dhacda guryaha apartmentooyin bay u badan yihiin. household-ka dadkaas guud ahaan wuu badan yahay. waxaa laga yaabaa gurigii inay wada degan yihiin 6 qof 5 qof iyo wixii ka badan. dhalinyaro fara badan inay halkii mar u wada kacaan. taas markaa waxay sababaysaa khatar aad u fara badan oo shilalka inay aad ku badan yihiin. waxaa kaloo iyaduna dhacaysa aagaas oo kale haddii dadka noocaas ay degan yihiin, dadka baabuurta barbaranaya ayaa iyaguna ku badan baa laga yaabaa. taasoo iyaduna dee saameyn muxuu shilalkii aagaa ka dhacay runtii aad iyo aad u kor ugu kacayo. marka guud ahaan aagagaas oo kale dadka deganna runtii aad waxaa u taarget gareeya. hadda tusaale ahaan haddaynu bulshadeena Soomaalida aynu soo qaadano chiropractor-rada iyo lawyer-rada
iyagoo ka faa'iideysanaya dadka aqoon darrada xagga insurance ka haysata iyo isla mar ahaantaanan sharcigiiyo ayna fahamsanayn luuqadii ayna fahamsanayn taas oo marka sababtay inay si aad u xad dhaafay inay communitygeena ay u target gareeyaan waxay hire gareystaan niman dad Soomaaliya oo dadkii shilku markuu dhaco normally waxyaalo public way waxa recordka ay shil haduu dhaco oo kale way subaxii oo kale intay soo helaan dad Soomaaliya loo soo diro qaabka loo target gareeyo taas way marka eriyooyinkan hadda tusaale ahaan Columbus Ohio aanu deganahay eriyooyinka ay Soomaalidu ku badan tahay 10 sano ugu dambeeyay marka dib loo eego qiimaha insurance-gu kor u socdaa marka waxay isweydiin yeelanaysaa waxaad arkaysaa qof aanan shilalba gelinba insurance-giisa halku ka filayay caadiyan say ahaan jirtay inuu hoos ugu dhaco qiimihiisu maadaama de qofkii uu record wacan oo uu yeeshay oo muddo badan uu la joogay company-gii inuu muxuu ahaay qiimihii uu kor u socdo marka maxaa taa keenaya insurance waxa weeye area-da aad degan tahay ayaa runtii maamusho waayo area-daas perceived code area tusaale ahaan kaba soo qaad qiimaha lacagta laga ururiyo ayaa waxaa lagu bixiyaa khasaaraha ka dhaca marka aad marka uu kala bato khasaarihii insurance-gii meesha kaga dhacayay faa'iidaday ka helayeen waxa ay muxuu ahaay sameynayaan inay qiimihii kor qaadaan caadiyana waxa weeye quarter walba saddexdii bilood ee walba dib eegis ba insurance-yaasha lagu ay sameeyaan maxay khasaareen maxay faa'iideen sidaas si lamida state-ka laftiisu waaxda u qaabilsan caymiska ayaa iyaduna dib eegis ku sameysay ma guud ahaan ma khasaare aad weyn baa kaga dhacay aagaas mise faa'iido marka haddii khasaarihii aagaas kaga dhacay insurance-gaas uu aad iyo aad u bato state-ka laftiisa ayaa qiimihii base-ka ahaa isaga laftiisa kor u qaadaya isagoo marka state-ku ka duulaya dee ma rabo insurance-gu inuu intuu musallafo hadhowto dadkii macaamiisha ay ku jiray uu khasaarahay geysteen bixin waayo marka guud ahaan intaasaan hadda maanta kusoo koobaya videogan wixii dheeri ah macluumaad u baahataan xafiiskaygaad igu soo booqan kartaan halkan shaashada dabcan ka arki doontaan contactigayga aad iyo aad baad u mahadsantiin